in badan waxaa la sheegaa in tallaalku yahay jidka lagu soo celin karo noloshii caadiga ahayd laakiin se la dooran karo wadooyin kala duwan si loo dhaqsado hadda waxaanu qaadanay doorasho noocaas ah markii la bilaabay tallaalista waxaa ugu muhiimsanayd in la difaaco dadka halis ugu jira cudur daran iyo dhimasho hadda waa la tallaalay qayb badan oo ka mid ah dadka cudurka u nugul intaas kadibna waxaa tallaalka loo isticmaali karaa in lagu yareeyo faafidda cudurka lana soo dedejiyo soo celinta nolosha caadiga ah bilaha Juun iyo July waxaa toddobaad kasta Norway iman doona tallaal badan dawladdu waxay go'aamisay in degmooyinka loo kala badiyo tallaalka si degmooyinka cudurku ku badan yahay ay marka hore u helaan tallaal dheeraad ah si ay u dedejin karaan tallaaliska dadka degmada waa wax wadanka oo dhan u faa'iido ah arrintaa waxaanu ku xidhnay shuruud muhiim ah oo ah waa in halkani aanu dib u dhac macno leh ku keenin tallaalista dadweynaha waxaanu taas darteed guddoomiyayaasha gobolada iyo agaasinka caafimaadka u dirnay in ay u koorgalaan in degmooyinka awoodaan tallaalista dad badan xilliga lagu jiro fasaxa guud waanu helnay jawaabtii maahase jawaab cad oo hoosta ka xariiqan laakiin inta badan degmooyinku waxay sheegeen in ay howlaha tallaalista fulin karaan xilliga fasaxa inkastoo ay noqon doonto howl culus dhowr ka mid ah guddoomiyayaasha gobolada ayaa maanta igu yiri waa howl culus laakiin haddii aan laga maarmin waanu ku guulaysan doonaa waan u bogay waanan ka mahad celinayaa in degmooyinkaas ay shaqadu ku badan doonto bisha Luulyo ay waajibaad iska saaraan degmooyinka cudurka safmarka ah ku badan yahay taas darteed ayay dawladdu u dooratay in ay qaadato talooyinka macadka caafimaadka dadweynaha oo ah in 24 degmood oo muddo dheer cudurku ku badnaa isla markaana ku jiray tallaabooyin adag la siiyo tallaal ku dhowaad 60% ka badan intii ay caadi ahaan heli lahaayeen nidaamka ayaa soconaya ilaa inta dhammaan dadka ka weyn 18 sano ay helayaan fursadaha istallaalista dawladdu waxay raacday taladii ugu dambeysay ee macadka caafimaadka dadweynaha ee ku saabsaneed 24 degmo ee la siinayo tallaal dheeri ah iyo 23 degmo aan waxba laga jari doonin Trondheim iyo Kristiansand ayaa ka mid ah kuwa aan laga jari doonin haddaba waxaa muhiim ah in aan sheego arrintan dhammaan degmooyinka wadanka si xoog ah ayay tallaalidu uga socon doontaa waqtiga soo socda tallaalka loo kala badanayo waa tallaal dheeraad ah oo Norway imanaya June iyo July tallaalidu meelna ma ka sii istaagi doonto laakiin tallaalida ayaa loo dedejin doonaa degmooyinka mudnaanta la siinayo macadka caafimaadka dadweynaha ayaa toddobaadka soo socda keeni doona macluumaad ku saabsan tirada tallaalka ee degmooyinku fili karaan waqtiga soo socda si ay ugu fududaato diyaarinta hawsha tallaalidu degmooyin ayaa sheegay in habkan loo qaybinayo tallaalku ku keenayso walaac ku saabsan inay hawsha tallaalida awoodi karayaan xilliga fasaxa guddoomiyayaasha gobolada iyo agaasinka caafimaadka ayaa durba bilaabay in ay degmooyinkaas la eegaan siyaabaha loo caawin karo waan ogahay in dad badan ku farxayaan arrintan kuwa badanna ka xumaan doonaan waa ay jiraan waxyaalo macquul ah oo lagu doorto ama lagu diido in degmooyinka loo kala badiyo tallaalka anigaba waan qiranayaa inay ugu ahayd kala doorasho adag sababta ugu weyn ee aanu u go'aaminay in degmooyinka loo kala badiyo tallaalka ayaa ah in markaas la dedejin karo dib u furidda wadanka oo dhan waa aynu ka midaysanin xaaladan adag jawaabaha degmooyinka laga helay maanta ayaa muujinaysa in wadanka oo dhan laga rabo in si wada jir ah looga baxo xaaladan